agaasimiye hore xafiiska warfaafinta ra'iisul wasaare Umar Abdirashiid Ali Sharmaarke Fahad Yaasin Xaaji Daahir kadibna noqday agaasimaha guud ee madaxtooyada kadibna loo magacaabay taliyihii sirdoonka hay'adda NISA ugu dambeyn wuxuu isku soo sharaxay xildhibaannimo kadib markii uu ku guuleystay xildhibaannimada ayaa loo diiday kursigiisa hub 86 Fahad Yaasin Xaaji Daahir wuxuu ahaa wariye ka tirsan TV-ga Al Jazeera kan waa waraysi uu la yeeshay Sheekh Xasan Daahir Aways Fahad Yaasin Xaaji Daahir wariye Fahad Yaasin waqtigaas waxa uu su'aalay su'aashan Sheekh Xasan Daahir Aways laakiin Sheekh Xasan dawladda Soomaaliya hadda waxay leedahay waxaad beegsataan xaafado la degan yahay laba jeer ayaad beegsataan marna madaafiic ayaad ku tuurtaan ciidamada Afrikaanka iyo xarumaha dawladda markaasi ay waayaan bartilmaameedkooda oo waxay ku dhuftaan xaafado ay degan yihiin muwaadiniin sidoo kale waxaad u beegsataan si kale oo aad u toogataan mid ka mid ah xarumaha ciidamada Afrikaanka ah jawaabtiina waxay noqonaysaa in kumanaan qof lagu dilo idinkoo mucaaradkii Soomaaliyeed ah waxaad qaadaysaan talaabooyin dhaawacaya muwaadinka Soomaaliyeed Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa ku jawaabay haddii ay dawladda sidaasi u hadlayso taasi waxay daliil u tahay in cadowga ay la jiraan waan sameyn jirnay sidaasi waayo markii aan wada joogi jirnay markii xabashada iyo kuwa Afrikaanka ah waxaan cadowga ku tuuri jirnay rasaas yar iyo hoobiyaal marka maanta ay cadowga difaacayaan oo ay leeyihiin cadowga ayaad garaacaysaan oo aad wax la beegsanaysaan haddaan cadowga la dagaalamayno oo aan wax la beegsanayno waxaan noqonaynaa miya dambiilayaal waqtigan oo markii hore ma noqonin miya dambiilayaal taasi waxay daliil u tahay in ay dhinac kale jiraan Fahad Yaasin wuxuu ahaa wariye weydiiyay madaxda ama dadku uu waraysiga la yeeshanayo su'aalo aad u adag mar uu waraysi la yeeshay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayuu ku yiri soo dhawow mudane madaxweyne waraysiga waxaan ku bilaabaynaa su'aal siyaasadda ka baxsan kadib markii la idin doortay madaxtinimada ma waxaan kugu yeeraa Sheekh Shariif Sheekh Axmed si uu isbedelay oo waxaan kugu yeeraa madaxweynaha jamhuuriyadda Sheekh Shariif ayaa ku jawaabay badanaa naanaysta waxay leedahay munaasabadooda iyo duruufta gaarka ah idinka ayaan idin daayay waxaad igu yeeraysaan Fahad Yaasin ayaa markale su'aalay Shariif Sheekh Axmed oo wuxuu ku yiri laakiin waxaa jiraan warbixino oo xitaa reer galbeedka oo sheegaya inay jiraan xiriir shakhsiyadeed oo aad la leedahay kuwaasi iyo xiriir kale oo aad la leedahay kuwaasi kuwa taageera oo ah xarakada Al-Shabaab Sheekh Shariif ayaa ku jawaabay arinkaasi ma ahan mid saxsan Fahad Yaasin ayaa markale ku yiri laakiin mudane madaxweyne waxaad ahayd argagixiso marka loo eego dhanka Mareykankana waxaad ugu jirtay liiska argagixisada maxaad arimahaadii oo dhan aad u ogaaweysay Sheekh Shariif ayaa ku jawaabay waxaan u maleynayaa arintaasi mas'uuliyad kuma lihi waxaan u dagaalamayaa qadiyada dalkayga aragtida Mareykankana aniga ma xukmin karo sidaa darteeda su'aasha waxay ku fiican tahay in la weydiiyo Mareykanka